yaa guuleysan kara kulankan. 10 xaqiiqo ayaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkan, waana sheekooyin hore u dhacay oo ku aadanaa Chelsea iyo Liverpool. qoraal ama maqaalan ka soo xigeenay Ustaad Zakariya Cabdi. Liverpool afar jeer ugu dambeysay Stamford Bridge booqdaan wax guul amaysan soo gaarin 3 barbaro iyo guul daro. 2 Liverpool markii ugu dambeysay 2 kulan isku xiga away ee hayeen horyaalka ee laga wada badiy waxa ay 2023 waxay iska ilaalin doonaan guul daradii labaad oo xiriir ah iyagoo martiha kulan horyaalka. 3 5 jeer ugu dambeysay qaramada la aaday Liverpool guul ayagoo wata ay qaramada la aadi jireen iyo waliba clean sheet. haddaba isbuucan haddii la dheelaan qaramada la aadi doonaa markii lixaad Liverpool iskoorada ma sii wadan doontaa. 4 kubadda heesashada labada koox waxa ku badan Liverpool 6 kulan ugu horeysay seasonkan. Chelsea boqolii ahaan kubadda heesashada waxay ahayd 61.7 halka Liverpool ay 35.5. 5 Mohamed Salah uu jecel yahay kooxdiisii hore Chelsea markuu ka hor imaanay xitaa hadduu faam xun ku jiro, maxaa yeelay 15 kulan oo ka hor yimid 9 gool iyo ku lug yeeshay 5 gool oo dhaliyay 4 caawin ah. 6 Isaac 4 kulan ugu dambeeyay Chelsea ka hor yimid 3 kulan ka mid ah shabaqooda ayuu gaaray. maanta waa lagu soo bilaabayaa sida u badan tahay maadaama Ekitiko dhaawac yahay. 7 laga soo bilaabo xeeradkii hore ilaa imika Chelsea waa kooxda horyaalka kaararka ugu badan ee digniinta iyo ganaax xaruursatay 114 jaalo iyo 4 roose. Liverpool waa u faa'iido roose kale Chelsea ay qaataan kulankan. 8 Enzo Fernandez wuxuu toos ugu lug yeeshay 10 gool horyaalka 2025 kaliya waana 6 gool iyo 4 caawin. waxaa kaliya ka badan Bruno Fernandes 12 gool ku lug yeeshay ciyaartooyda qadka dhexe BL-ka marka la dhaho. 9 Chelsea 12 gool horyaalka dhaliyeen 5 ka mid ah koornooyinka ay ka yimaadeen halkaas waa ay quutaan. Liverpool waa loo cabsadaa. 10 markii ugu dambeysay Liverpool booqdeen garoonka Chelsea waxaa lagu xasuuqay 3 gool guul daro ah. miyaa mar kale guul daradaasi la cunsiin doonaa?